بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta halkan u soo fariisanay dhibaatada weyn ee lagu hayo cundufo. waxaan u soo fariisanay inaan ummadda u sheegno gurmad qaran. cundufo maanta waxay u baahan tahay gurmad qaran bay u baahan tahay. dhammaan dhalinyarada dhammaan wixii maanta gargaar hiil iyo hooba dhinac kastaba siin kara waxa looga baahan yahay maanta in loo gurmado cundufo maanta way hareeraysan tahay dhinac kastaba cadowgu ka fadhiyaa. cundufo maanta waxaad ogtihiin xiradii Cobollo la oranayay. Cobollo waxay ahayd xero ciidankeenu ay deganaayeen. Federal Police yaa xiradii kala wareegay bay ahayd. annaga halkaa fadhinayno ni kala eegayna ahayd Cafar iyo idinka. xiradii maanta waxa loogu talagalay in Cafar la fadhiisiyo, Cafar baa la geeyay. marka waxa weeye Cobollana meesha inoogu taalo waan garanaynaa. taasiyadu waa sidaa. arrinta kale soo biirtay bankii hooyaale dhammaantii meelo badan yaa ay Cafartu ka soo samaysay inay jiingadana ka dhistaan, ay dagaalna ku soo qaadaan xoolo dhaqatadii aaggaa deganay. waxa weeye maanta waxaan ognahay xoolo dhaqatadii cundufo agaarka iga deganay in maanta ay khalkhal weyn ku jiraan baan ognahay. sidaa daraaddeed waxa loo baahan yahay koow in cundufo gargaar runa maanta la gaarsiiyo. inta aan ku mashquulsannahay shirka la sheegayo ee lagu qaban doono Ishaaca waa kanoo tanaa ka soo horeysa. waxaan ognahay awal arba inuu ciidankiisa dhex fadhiistuu dhiirigeliyo. waxaan ognahay in maadartay innaga dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay kolnaba soo dhex fadhiisan ciidankeenna hadduu yahay dadka xoolo dhaqatada isdifaacaya iyo hadduu yahay liyu booliisba. waan ognahay maanta dhib baa ka jirta ay qoladii la odhanayay al-shabaab dhib weyn inay nagu hayso, in deegaankeenna ay soo galeen, in dee layska daafaco inay tahay waa xaq waana run. annaguna arrintaa waxaan leenahay in deegaanka la difaaco way tahay waana xaq. laakiin deegaanka la difaacayo cundufana ka mid bay tahay in layloobi. madaxweynaha deegaanku wuu tegay halkaa, gurmadka wuu la sameeyey in lala dagaalamayo al-shabaab. dee waxa weeye taa waan ku boorinaynaa, waan leenahay waad ku saxsan tahay, sax baad ku tahay. laakiin madaxweynow weli dadkaagaa la dhibaya, dadkaagaa dhibta ku haysato maad dhex tegin. ciidamada intaad dhex tegtay maad dhiirigelin. shacabka isdifaacaya maad dhiirigelin. xilligaa waxaa weeye arrintaa iyada waa lagaa sugayaa. midda kale waxa weeye aan maanta leenahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida weli muu dhex tegin dadka iska daa difaaca. inuu waxaan leenahay waar dadkan dhex kaalay oo hiil iyo hooba sidii loo siin lahaa aan isla wada qabanno. dadka u imo dhex imo in dagaalka lagu hayay xaqdarrada dadka laga difaaco si ay moraal u helaan. waa in dhammaan ciddii noogu jirta dowlad deegaanka Soomaalida uu kow ka yahay madaxweyne ku-xigeenku inuu halkan yimaado oo dhulkan la difaaco. waxaan ognahay maanta
ninka xirada codol ku wareejinaya afarta ninka waad ogtihiin waa ninkii ka shaqaynayay muddo dheer sidii cundufo markii laga kicinayay dadka ninkii waxa ka soo shaqaynayay buu ahaa ninkii ma cundufo maayna waxaan u jeedaa cadaytu ninkii waqtiga maad aragtay ka shaqaynayay sidii cadaytu dadka looga kicinayay buu ahaa kaligiina ma ahayn waxaa ku jira ninka la yidhaahdo new police federal police ka Ethiopia ragga aaga u qaabilsan nin la yidhaahdo Idris baa ku jira Idris baa ku jira Abbas baa ku jira ninkan Saciid kan sheegaya ku jira intaasba waxay ka shaqaynayeen muddo dheer si tolkeen dhulka looga kiciyo shaqadii ay qabteen weynigii ogaa garbaciisa iyaga ka shaqeeyay 7 kuna ciidankii la keenay iyaga keenay afar bay dhinacna ka soo baabiliyeen magacii shaarkii dawladda Ethiopia way sitaan waxa weeyaan ragga shaarkii dawladda Ethiopia federal police ka sita ee maanta dadkeena dagaalka ku haya ee kolba meel u soo fadhiisanaya ee xirooyinka intay ilaahdaan waan ka soo baxnay kaalay cafaray soo dega ee maanta aan arkayno dhibta ay ku hayaan dadkeena dadkaas waa federal police ka tirsan yihiin hadday ka tirsan yihiin dadka waxa hawshooda wada waa salaam minister baa wada dadkaas dawladda Ethiopia wada dawladda Ethiopia dib weyn bay dadkayga ku haysaan dadkan la barakicinayo cidii loo soo diray waa ragga saddexdaan inaan magacayga nii sheegay weeyaan xilliga maxay naga maanta nagu haboon kol haddaan arkayno dawladda Ethiopia halka inay marayso waddankiina aan arkayno Ethiopia inuu gabigiisu khalkhal ku jiro in aan dadkeena difaacna loo baahan yahay liyu booliiskeena inaan dhiiri galino shacabkeena inuu kacoon dhiiri galino waxa loo baahan yahay kaleete in ma adartay hawlaha aan iyo kharashka aan ku bixinayno shirkaa isha iyo kharash iyo raashin iyo lacagaha loo ururin shirkaa isha waa in loo weeciyo oo laga hawl galo cundufo in laga hawl galo weyn cundufo maanta gargaar weyn buu u baahan tahay baritoole inaan cabaadin waan ogeyn garbaciisa markii la dilayay kolba dhinac baa laga fadhiisanayay dadku way qaylinayeen looma gurmanayn maanta walaalaheen cundufo waa taa soo qaylinaysa gurmad baan u baahanahay cid kastana way la soo hadashay dawlad deegaanka ay la soo hadashay oo hogaamiye dhaqameedka la soo hadlay shicibka la soo hadleen waxa loo baahan yahay dadka in si dhaba loogu gurmado hantida la hayo wixii halka lagu tagayo in maanta halka lagu daafacay u baantay ma baritoole marka ay dhacdo la yiraahdo ma aragtay hal difaaco waxaan leenahay ma baritoole in loo sameeyo xusba doonaysi sida xusaan ugu sameeyaan maanta garbaciisa waa khalad maanta iyay joogtaa waad ogtihiin cundufo way hareeraysan tahay dagaal weyn baa lagu hayaa day waxa loo baahan yahay maanta wixii hanti la hayo wixii xoog la hayo in halka la isku geeyo oo loo gurmado bal inta shirka ay shacab ku maqanay waa kan waa ragiis waa kuwa soo qaylinayay haddii halka lagu kala kaco maxaad bariyaad oranaysiin waa sheekadii hore u baataala qayladii bay qaylinayeen lama dhageysanayn way hadlayeen lama dhageysanayn garbaciisa maanta cundufana lama dhageysanayo waan arkaynaa iyadoo oo dhibta oo dhan maanta ay ku jirto cundufo oo soo qaylinayso oo xalay oo dhan ay maadartay hurda ayna seexan ubad iyo hooyi iyo intaba iyo shacabkii meesha ku noolaa ay hurda xalay seexan walaalayaal waxaan leeyahay waa nin kastiba oo ay arintaasi ay damqayso maanta waxaan u baahanahay gurmadka in loo sameeyo cundufo waxa weeye gurmad qaran hanu sameeyno cundufo madaxda matasha dawlad deegaanka Soomaalida ee ka tirsan gobolka Sitina maanta wax aad
halkaa ood joogtaan faa'iido weynii ma ahae halkan kaale ee dadkan sidii loogu gurman lahaa la sameeyo. Salaamu calaykum.